waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, dhacdooyinka dhibaatada xambaarsan sida dadka kale ayay gabyaaga u danqaan. haddii uusan ka darnaynba sida dadka kale ayuu xanuunkooda u dareemaa, sida dadka kale ayuu uga murugoodaa dhacdooyinka naxdinta leh ee la soo gudboonaada qoyskiisa ama bulsho weynta uu ka tirsan yahay. siday u badan tahayna markaas oo kale waxaa laga filaa inuu ku alalado maanse murugada hayse huwan oo intuu dareenkeenna ku kiciyo uu garowgeennana ku taabi karo. marmar bayse dhacdaa in hal abuurku uu ka aamuso dhibaatada ku soo korodhay inuu si toos ah dadka u ogeysiiyo. su-aashuse waxay tahay maxaa ugu wacanoo kolkolka qaarkood uu gabyaagu uga gaabsadaa inuu si bareera wax uga yidhaahdo dhacdo xanuun leh oo soo martay. waxay ila tahay kol waa cabsi oo waxaa suuragal ah inuu ka yaabaya hadduu gabyo in dhib hor lihi ka soo gaaro oo ciddii markii hore dhibaatadiisa sababta u ahayd ay weli leedahay awooddii ay wax ku yeeshay dabadeedna ay uga darto. ama wuxuu ka baqayaa maanse cusub oo uu tiriyaa inay mar labaad xaabo ku sii shido colaad markaaba taagan, colaad sokeeya oo weli aan xanafteedii laga wada caafimaadin. ama wuxuu ka meermeerayaa inuu si caddaana u shaaciyo eeda ay ka galeen xubnaha qoyskooda kuwa ugu dhowdhowi, markaasna reer ahaan loogu wiirsado. iyadoo ay arrimahaasi jiraan ayaa haddana welbahaarku maansayahanada qaarkood ka adkaadaa, dabadeedna uu ku hambooriyaa wixii dhacayaaba ha dhaceene laabtooda waxa ka hogmaaya inay dibadda soo dhigaan. qaar kalena iyaga oo maanka ku haya sababihii aan soo sheegay ka wax ayay u bayraan xagga sarbeebta, markaasoo ay tiriyaan tixa daboolan oo dhowr siyood loo qaadan karo, wixii loola jeedayna aan si qeexan cidina ugu dhaaran karin. aan haddaba arrintaa dambe ku tusaaleeyo dhacdo xanuun badan lahaydoo soo martay gabyaagii weynaa ee Cali Dhuux la oran jiray. waxaa la yidhi isaga oo markaa bastiila ah oo tala mooye aanay tabari ku harin ayaa waxaa geed u waabnaa ugu soo galay nin dhallinyaro ah oo aad u dhiilaysan. markaas buu odaygii oo gubashiisa iska jiifa qaylo ku toosiyey. warbaas buu u sidaa, waa geedidii curadkiisa waxa uu ku hulluban yahay. wuu gaboobayoo maqalkaa gabaabsi ku ahaaye intuu dhegta afka ugu dhoweeyey ayuu ugu celcelinayaa faarax geed dhimay, ma bir baa, ma bas baa? Cali Dhuux baa ninkii weydiiyey. kiina wuxuu ku jawaabay, waa biro, hebel iyo hebel ayaa gacanta lahaa oo meel hebla ku makalay. odaygii baa korkaa indhihii madoobaadeen. duhur bay ahayde habeen bay dunidiiba ku noqotay. murugada haddiiba saabatay ee geerida inankiisu ay ku markatay waxaa ku sii labanlaabay nimanka la yidhi way dileen haybtooda. waa sokeeye si uu uga aarsado aanu garan karin. dhalaartaas iyo kuwii xigayba waxaa ku ag wareegaya dhallinyaro jeclaan lahayd inuu gubaabiyo duulaanna uu u guddoomiyo si dhiigga faarax dhiig loogu daro. calise nin weyn buu ahaaye taladaasi uma cuntamayn. dhowr maalmood kadib ayaa waxaa u yimid nin ka mid ah raggii in faarax loo aaro rabi lahaa, kaasoo weydiiyey, caliyow, arrintii faarax maxaa hadda laga yeelayaa, miyaa la iska iloobay? maalintaas buu Cali Dhuux gabyey. wuxuu tiriyey gabay ka kooban hal meedis oo aanu mid labaad ku darin. hal meedisoo wixii uu ula jeeday ilaa maanta cid sheegi kartaa aanay jirin. hal meedis oo laqbihiisa uu gabyaagu la godgalay. wuxuu ahaa, hal i galay sidii ugaxda goray ha igu gaaraad. inkastoo aysan badnayn haddana waxaa jirta maanto si aada loo daboolo gabyaaga dhibtu haysaana uu tiriyo markuu isku dayo inuu waxa haya ka aamuso, hase ahaatee uu bushimihiisa ka adkaan waayo. markaasoo kale ujeeddada tixihiisa daboolani waxay tahay culayska saaran ee ay arrintu ku hayso inuu iska kala yareeyo, isla markaasna aan cidi wax quman ka ogaan.
tanna aan ku tusaaleeyo raago ugaasoo jeer doonay gabar abtigii dhalayoo cabban cilmi xuseen la odhan jiray tan iyo markii ay tuurka lahaydna uu aad u jeclaa waa la siiyey isla markiiba sama dhisane wuu ka tagtay malaha wuxuu is yidhi gabadhu waa ina abtidaayoo way kuu joogi ee waxbana ha degdegina yaradkeeda kol dambe gee markaana dhiso muddo hadduu maqnaa warna laga waayey ayaa cilmi xuseen waxaa u soo dodab galay baa la yidhi barbaar ina wiilwaar ahaa oo mar axmed lagu sheego marna faarax loo wariyo oo muxuu dooni isla cabbantii raaga u doonanayd ayuu u soo gogol fadhiistay sida magaca ka muuqatana wuxuu ka soo jeeday qoys xilliyadaas awood badan lahaayo in gabar loo diidaa aysan fududayn sidaa darteed baa haddiiba gabadhii loo siiyey lagula xidhiiday loona dhisay dabadeed beri dambe oo xeer iyo fadhaal kala dhaceen cabbanna ay ina wiilwaal aqalka ugu jirto ayuu raaga goor habeena reer cilmi xuseen u soo hoyday haddiibase wixii dhacay laguma taabane ardaa heelan baa gogol hufan loogu fidiyey gasiin wixii uu mudnaana loogu geeyey isla habeenkaas markuu raggii ka soo kala dareeray ayaa waxaa ardaagii ugu timid islaan ay xigto ahaayeenoo reeraha lagu qabo tii baa ku tidhi war gurigaa ba'ye waa goorma goortaad socotaa maxaa dhacay buu ku yidhi markaabay tidhi cabban la guursay oo ina wiilwaal baa la siiyey isaga ayaana lagaga yarad qaatay kadib markii la waayey meel aad jaan iyo cedib dhigtay waxay raacisay aqalka halkaa ka dhisan ee kuu muuqda ayuu aroos ku yahay fiid bay ahayde habeenkaa intii ka hasanayd raaga ma ladin gogashii buu qaban waayey kolna wuu jilbageel jireeyaa kolna wuu sala joogsadaa sidii isaga oo waaga ka hor reerka ka gudi doona dacdadaa iyada ah raaga dhowr tixood oo dareen taabad leh ayuu ka tiriyey wadase marin maynee midkood baanu maanta uga dan leenahay waa tix gaabanoo aad u daboolan aniguna iyada iyo kuwa lajaadka ah lama suureeyaanka maansada aan isaga magacaabo waa meelisyo macno ahaan iska soo horjeeda oo inay suuragal noqon karaan aan cidina suurayn karin waa nooc maanso oo la moodo in gabyaagu ugu talagalay naftiisa oo keliyahe aanu dan ka lahayn sababtii uu u mariyey in la garta iyo in kale bal su'aalahan u fiirso dabadeedna ka jawaab ma qof baa isaga oo meel dibada oo bannaan ku sugan haddana isla markaa aqal gudihii jiifi kara ma qof baa cadar aan la marin ama aanu isagu ismarini ka soo carfi karaa ma qof baa oonka haya intuu isaga adkaysto daysan kara isaga oo balli xareeddu waran tahay ay hareerihiisa uga muuqdaan yaa maqlay oo arkay roobgeeda bixiyey oo dhirtii cagaar ka wada yeelay isla markaana dhulkii uu ku da'ay kolba leexadu ay cirka isku shareerayso waan hubaa in jawaabahaagu ay maya ahaayeen hase ahaatee iyaga oo ah haah waxaa lagu hayaa tixdan madahayga lama suureeyaanka maansada ugu da'da weyn ee raaga uu habeenkaa tiriyey waa tixdii uu ku odhan jiray albaabada dibaddan ka jiray aqalna waan jiifay istambuuli cadarlayma marin udugna way daaray ogaadeen dhar uma qaadahayn awrna waan rarayey waan oomanaa oo biyaan ku ag wareegayey onkod iyo hillaaca roobna waa igu itaalayey awaaraha ma nabin oo haddana waa anfacay kaynta dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo